السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كلهم طبعا مركز لا سو دواada channelka daawanaysiin waa channelkii Dr. Saddam Hussein maanta waxaan idin wadaa shan shay oo in ay maaragtay caadadaada ay soo daahdo ka dhigayo in caadadaada ay soo daahdo shantan shay waa shan shay oo muhiim ku ah hadaba waxaan filayaa in aad maaragtay ka bogan doontid video ilaa intuu ka dhamaanayo haddana aw gudagalna shayashan shayga koowaad waxa waaye hadii aad maaragtay aad iska ridid miisaankaaga hadii aad si degdeg ah aad ku ridid miisaanka aad sida dhaqsada aad iska ridaysid wuxuu keenayaa maaragtay in ay hormoonadaada ama ovulationkaaga uu idil u wada qaldamo kadibna wuxuu ku keenayaa in maaragtay hormoonadaada ay wada qaldamaan oo cycle-kaada uu wada qaldamo sudden weight loss waxa waaye waxyaalaha qaarkood oo contribute gareeya in ay caadadaada ay soo daahdo shayga labaad waxa waaye hadii maaragtay body cycle-kaaga ama clockwork oo bodygaaga aad qaladid ama saacada jirkaaga hadii aad qaladid saacada jirkaaga waxa waaye hadii aad maaragtay jirkaaga aad ka badashid timekii uu ku socon jiray oo normal routine-kii aad ka badashid ama sida caadada ku ahayd inaad badashid oo si kala aad u badashid hadii aad maaragtay maalinkii qof shaqeynaya aad tahay ama qof dumar oo maalinkii oo idil shaqeynaya shaqadiis maalinkii kaliya ku ekeed hadaa tahay aadna ka badashid maaragtay habeen shaqeys aad gashid taasi waxay ku keenaysaa in maaragtay circadian rhythm-kaaga uu bedelmo kadibna aad gashid xaal oo maaragtay changes uu ku dhacayo brain-kaaga iyo maaragtay meelaha oo idil hormoonada laga soo daayo taasina waxay keenaysaa in cycle-kaaga uu wada qaldamo hal maalin aad cycle-kaaga aad bedeshid waxa uu ku keenayaa effect badan oo maaragtay dhanka hormoonada uu keenayo hadii marka aad ka sii dartid oo maaragtay qof habeen oo idil shaqeynaya hadaad ka dhigtid cycle-kaaga ama aad u baranin markii hore haddana habeen ama maalin cycle-kaada aad bedeshid ama circadian rhythm-kaada aad bedeshid waxa uu kula soo ziyaadaya in maaragtay ayadana ay ku keento in caadadaada ay soo daahdo shayga saddexaad waxa waaye hadii maaragtay ay kugu dhacdo ama maskax buuq oo kugu dhaco taasi waxay ku keenaysaa ayadana stresska waa one of the leading factors oo ku keenaya in caadadaada ay soo daahdo stresska kaliya maahan laakiin waxa waaye emotional stresska ama emotional distress wax loo yaqaano tani waxay keenaysaa in caadadaada oo idil ay maaragtay ka dhigto ama caada irregular period oo kugu dhaco tani wuxuu ku contribute gareynaya in maaragtay jirkaada oo idil a lot of maaragtay maskaxdaada stress ay xamili karin ay geliso kadibna ay maaragtay hormoonadii maskaxdii ay soo daaynaysay oo idil oo ku wada xiranayo ovarieska hormoonadii maskaxdii ovarieska isku xiranayo oo idil inay qaladaad badan ama dhibaatooyin kale ay ku yimaadaan tanina waxay keenaysaa in caadadaada most of the time ay soo daahdo shayga afraad waxa waaye hadii maaragtay kugu dhacdo waxa loo yaqaano hormonal imbalance sidiis waxa waaye waxaa kamid ah maaragtay PCOS ama polycystic ovarian syndrome ka waxa waaye waxyaalaha keenaya in jirkaaga hormoono badan ama hormoonka loo yaqaano testosterone zaidka inuu soo daayo kadibna uu kugu dhaco maaragtay hormoonada ragga ay kugu bataan tanina waxay keenaysaa in maaragtay calaamadaha PCOS-ka aad dareentid sida maaragtay timaha wajiga kaaga soo baxayo caadadii oo ka soo daahda ama caadadii oo idil oo ka guurto sidoo kale intaas in ka badan weight gain inuu kugu darsamo sokor lagugu sheego intani in ka badan inuu PCOS-ka lagugu sheego kale waxa ku keenaya in oo hormoonadaada ay qaldan yihiin ay ku keenayaan polycystic ovarian syndrome sidoo kale hormonal imbalance waxaa ka qayb qaata maaragtay qadarka loo yaqaano thyroidka sidiis waxa uu keenayaa thyroid gland-kaaga haduu soo daayo abnormal hormones wax loo yaqaano sida maaragtay T3 T4 iyo TSH oo badan hadii maaragtay thyroidkaaga uu soo daayo waxa dhici karta thyroidkaaga inuu kor u kaco ama in uu hoos u dhaco labadaasi noocba inay kugu dhacaan oo ku keenaya in caadadaada ay qalqal ay gasho ama caadadaada ay soo daahdo ugu dambeyntii labada shay oo maaragtay caadadaada ay soo daahinayso waxa kamid ah waxa loo yaqaano perimenopause waxa waaye gabadhii may gaarin xilligii maaragtay caadada ay ka go'aysay ama maaragtay ilmo dhalistii ay joojinaysay kadib waxay galaysaa maaragtay xaal ama in ay gasho ama xaaladaas ka hor in ay gasho waxa loo yaqaano perimenopause sidiisna waxa waaye gabadhii waxay isku arkaysaa astaamihii ama calaamadihii maaragtay dhalmagooyintii ama maaragtay gabadhii oo dhalmada ka guuraysa calaamadihii qofka ayada isku arki lahaay ayaa u soo hormarayo oo marka ay isku arkaysaa waqtigii ka hor calaamadahani marka waxay u keenayaan waxa kamid ah ama maaragtay in ay caadadii ay ka soo daahdo calaamadahani waxa kamid ah kow in maaragtay gabadhii ay isku aragto hot flashes wax loo yaqaan wajiga kuleel zaid ay ka dareento irregular period-ka oo maaragtay sidoo kale loo yaqaan caadadii oo ka qaldanta ama delayed period-ka caadadii oo ka soo daahdo
intani in ka badan ayay gabadhi isku arkaysaa kadib waxaa maaragtay wanaagsan mar walba haddii dhibkan aad isku aragtid inaad dhakhtar u tagtid. ugu dambeyntii shayga ugu dambeeya ayaa ah maaragtay gabadhi haddii maaragtay gabar nuujinaysa ay tahay waxaa wanaagsan mar walba in ay maaragtay ay ka fikirto ama ay ka warhayso in caadadeeda ay soo daahayso. nuujinta waxaa gabadha xilliga markay nuujinaysa ama xilliga naas nuujinta ay ku jirto waxa ay galaysaa xilli ama maaragtay waqti ay hormoonka loo yaqaano prolactinka uu zaaid ku yahay jirka. prolactinka waxa uu ka caawinayaa in maaragtay caanihii zaaidka ay maaragtay maskaxdii ay ka qayb qaadato dhanka caanadaysta. prolactinkan wuxuu soo daaynayaa caanahaga inay jirka ku bataan. sidoo kale waxaad isku arkaysaa maaragtay caadada inay ka soo daahdo. side effect-ga breastfeeding waxa caadadii ayaa ka dhumaysa ama caadada inay ka soo daahdo. marka waxaad ogaataa waqti walba 60 shay in ay maaragtay dhibaatooyinka caadada ay ka qayb qaadanayaan ama in ay caadada ay ka soo daahayso in ay maaragtay ay gacan weyn ay ka qaataan. marka kuwa physiological process waxa waa waxyaalo iska caadi ah jirkii ama waxyaalo uu sameeynaa. kuwa kalena waxa waa jirkii ayaa maaragtay abnormality ka jirta ama xanuun ayaa ka jiro. that's why caadadaada soo daahaysa. asxaabta waxaan soo gaarnay gabagabadii gunaanadka barnaamijka fadlan meel walba joogtiin channelka kiilo subscribe like and share ka. waxaan idin rajaynayaa sidaas iyo nabadgelyo.